السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حين صعدا بوجيني نحوها A1 جرامر بوك. حين بلاوين 10 كلمات lesson 2 10 كلمات yes no questions. حين كبرنا سيدا لو سمي سؤالها جوابته أي نخونيسو ها أما مية. حين استعمالنا بي verbs وفرالك بيك فرعمة كان اس ام ار. lesson 2 10 كلمات yes no questions وسؤالها jawaabtooda ay noqonayso haa ama maya sida loo sameeyo anagoo isticmaalayna b verbs. cashirka saas ku sameeyay yes no questions sida loo sameeyo su'aalaha jawaabtooda ay noqonayso haa ama maya inuu adeegsanayna b verbs falalka ka farcama b gaar ahaan kuwa waa is iyo am iyo r weeyaan. haddaba waxa uu leeyahay point one qodob koowaad yes no questions sida loo sameeyo su'aalaha haa ama mayada ah with I anagoo adeegsanayna magacyaalka I. magacyaalka I marka naxwaha magac gooniyu ku leeyahay waxaa loo yaqaanaa first person singular. waa magacyaal uu adeegsado qofka hadlaya mujida waxaa loo yaqaanaa waa first person singular. waa magacyaal uu adeegsado qofka hadlaya. adiga haddaa hadlaysid oo aad rabtid inaad iska hadashid oo naftaada aad rabtid inaad ka hadashid waxaad isticmaalaysaa I baa isticmaalaysaa. raggii dumar waxaa doonta ahaa I isticmaala marba haddaad doonaysid in nafta ka hadashid I baa isticmaalaysaa. I-na waxaa loo yaqaanaa first person singular. waa magacyaal uu isticmaalo qof kasta oo markaa isaga iska hadlaya naftiisa ka hadlaya. marka wida kow hadda maxaa la yidhi am I late ma soo daahaa wida I marka aad subjecta markuu I waxay qaadato am marka amtii unbaa banaanka la geeyey. am I late ma soo daahaa wida am I in your seat ma kursigaada ayaan ku fadhiyaa. am I in your seat ma kursigaada ayaan ku fadhiyaa. marka asalka maxaa weye owl muxuu ahaa affirmative-ka jumladaas wuxuu I aniga am in your seat. saas oo ah weydi I'm in your seat waxaan ku fadhiyaa kursigaada. marka su-aalaa laga dhigay labadan waa lis weydaari. am I in your seat ma kursigaada ayaan ku fadhiyaa. am I your best friend ma waxaana saaxiibkaaga mujidaa. su-aalahaas oo dhan jawaabtu waxay noqonayaa labada midkood sida meeshaan lagu sheegay yes no questions. marka waxaa leedahay masalan qofka ma kugu dhaho am I late ma soo daaha maxaa ku oranaysaa yes haa you are waa soo daahdaa. madhiis yes you are late intaan ma soo qaadanaysa yes you are baa le haa waa soo daahdaa. ama waxaa leedahay no maya you are not ma soo dahan. saasaa lagu jawaabaya. qofka adugu ma soo daahda adugu dhaho waxaan aaday maa dhehe ama waan soo daaha maa dhehe maya. waxaa leedahay marka hore yes baa dhehe ama no baa dhehe kadib waxaa leedahay you are ama you are not. qof baa wuxuu ku yidhi matalan am I in your seat ma kursigaada ayaan ku fadhiyaa. waxaa leedahay yes haa you are waad ku fadhisaa. ama waxaa leedahay no maya you are not kuma fadhisad. matalan qof baa waxaa ku leeyahay am I your best friend waxaan ahay saaxiibka ugu fiican. marka waxaa leedahay yes haa you are waa tahay saaxiibka ugu fiican. ama no maya you are not matid saaxiibka ugu fiican matid. ma garat sidaa marka cashirka u fududiya waan wadi doonaa muuqaalkana ku dhameeyana isaga dhanba. bayntii qodobka labaad waxa weeye yes no question sida loo sameeyo su-aalaha jawaabtooda ay noqonayso haa ama maya with anagoo isticmaalayna you magacyaalka you. magacyaalkan marka naxwaha markii la joogo ingiriisiga magac kale uu leeyahay waxaa loo yaqaanaa second person singular.
waa magacyaalka u isticmaalo ama magacyaalka loo isticmaalo qofka aad la hadlayso qofka lala hadlayo maxaana fiiri I waxa weeye waxaa loo yaqaanaa waa first person singular waa magacyaalka u isticmaalo qofka hadlay you-na waa maxay waxaa loo yaqaanaa second person singular waa magacyaal loo isticmaalo aniga hadlayso oman qofka aad la hadlayso u isticmaalayso marka second person hal qof aad la hadlayso rag iyo dumar wuxuu doonaa haa waayo مثلا qofka hortaagan adiga waa kana qofka hortaagan baa rabta inaad su-aal weydiiso maxaa leedahay are you hungry ma gaajaysanta qofka hortaagan baa wax weydiinaysaa are you hungry ma gaajaysanta ama telefoon baa kula hadlaysaa are you hungry ma gaajaysanta waa leedahay markaas wuxuu leeyahay yes I am haa waan gaajaysana ama wuxuu ku oranayaa no maya I am not ma gaajaysin qof waxaa ku leedahay are you at home ma guriga ayaa joogtaa marka wuxuu ku leeyahay yes ha I am guriga ayaan joogaa ama wuxuu ku leeyahay no may I'm not guri ma joogo qofaa mathalan waxaa dhihi kartaa are you a teacher macalin miyaa tahay marka wuxuu ku leeyahay yes I am ha macalin ayaan ahay ama no buu ku oranayaa I'm not maya ma ihi macalin wajida casharka aada u fududaa point 3 waxa weeye qodobka saddexaad yes no questions sida loo sameeyo su-aalaha jawaabtooda ay noqonaysaa ama maya with she annagoo markaa isticmaalayna magacyaalka she marka shena waxaa loo yaqaanaa naxwaha markii la joogo third person singular third person maxaa waa magacyaal loo adeegsado qof maqan oo markaasi dumar oo laga hadlayo qof maqan oo dumar oo laga hadlayo third person singular way is Mary mad Maryam miyay xanaaqsanta is Mary mad Maryam miyay xanaaqsanta waa qof weydiis is Mary mad Maryam miyay xanaaqsanta marka qofka wuxuu ku leeyahay yes she is haa way xanaaqsanta ama wuxuu ku oranayaa no she isn't may ma xanaaqsan buu ku oranayaa ma garat qofaa waxay weydiinaysaa is she on the phone ma telefoon bay ku hadlaysaa is she on the phone ma telefoon bay ku hadlaysaa is she on the phone ma telefoonka ay ku hadlaysaa marka qofkii wuxuu ku leeyahay yes she is haa telefoonka ku hadlaysaa ama wuxuu ku oranayaa no she isn't may telefoon kuma hadlayso qofaa waxay weydiin kartaa is she your friend iyadana saaxiibtaada yes she is haa waa saaxiibteeda ama no she isn't may saaxiibteeda maaha point 4 waxa weeye waa qodobka afaraad yes no questions sida loo sameeyo su-aalaha jawaabteeda noqonaysa haa ama maya with he annagoo isticmaalin magacyaalka he oo loo yaqaano third person singular magacyaal loo isticmaalo qof maqan oo rag ah qof naga maqan wey tusaale qof baa waxaa leedahay is Jason absent is Jason absent Jason ma murugeysan ninka wiilka Jason ayaa murugeysan absent waa murugeysan wuxuu ku oranayaa yes he is haa wuu murugeysan yahay ama wuxuu ku oranayaa no he isn't maya ma murugeysna is he in the room ma qolka ayuu ku jiraa ayaa qof weydiinaysaa markaas wuxuu leeyahay yes he is haa qolka ayuu ku jiraa ama wuxuu ku leeyahay no he isn't maya qolku ma jiro qofaa waxay dhihi kartaa is he a nice person isagoo ma qof wanaagsan ba marka wuxuu ku leeyahay qofkii yes he is haa isagoo qof fiican no he isn't may qof fiican maaha ma garat marka waxaa sida loo sameeyo su-aalaha sida loo sameeyo markii la isticmaalayo is am waa soo barata waxaas mogta jawaabaha baranaysa hadda yes no question sida loo sameeyo su-aalaha jawaabteeda noqonaysa haa ama maya with it annagoo isticmaalayna magacyaalka it oo loo yaqaano third person singular waa magacyaal loo adeegsado yacni shay markaasi laga hadlayo computer ama
ama xayawaan laga hadlayo magaranaysa ama waxyaabaha kale caadiga la isticmaalo ama cimilada wax markaasi aan noole ahayn ama waxa weeye xayawaan ah magaranaysa ayaa loo isticmaalaa marka mathalan qof baa waxay weydiinaysaa is the computer expensive computer ma qaali baa expensive waa qaali is the computer expensive computer ma qaali baa marka wuxuu leeyahay yes it is haa waa qaali ama wuxuu ku oran karaa no it isn't maya qaali maaha qof baa mathalan waxaa weydiin kartaa is it on sale is it on sale ma raqiis baa laba waxaa rabaa inaad kala baratid haddii lagu dhaho sidan haddii lagu dhaho it is for haddii la isticmaalo it is for sale haddii lagu dhaho waxaa weye waxay ka dhiganta waa beec it's for sale waa beec laakiin haddii lagu dhaho it is on sale haddii lagu dhaho maxaa waay waxay ka dhigan tahay it's on sale waa raqiis wey macnaha yani qiimo dhibis ayaa dul saaran it's on sale waa raqiis marka su-aal baa hadda laga dhigay is it on sale ma raqiis baa qofku weydiin karaa computer ma raqiis baa marka waxaa leedahay yes it is waa raqiis ama no it isn't ma raqiis maaha is it a good computer computer fiican baa marka waxaa leedahay yes it is waa computer fiican ama waxaa leedahay no it isn't ma computer fiican maaha magarat واي صوصة واي عفوا بوينت 6 waxaa weeye qodobka markaasi lixaad yes no question sida loo sameeyo su-aalaha jawaabta ay noqonaysaa ama maya with they marka iyadoo markaa la adeegsanayo magacyaalka they sida loo sameeyo su-aalo jawaabta ay noqonaysaa iyo maya iyadoo la adeegsanayo magacyaalka they marka waxaa loo yaqaanaa garaamarka ama naxwaha waxaa loo yaqaanaa third person plural ayaa loo yaqaanaa waa magacyaal loo isticmaalo dad badan oo markaasi naga maqan dad badan oo maqan marka waxay noqon karaan rag oo keliya ama waxay noqon karaan dumar oo keliya ama isku jirkooda rag iyo dumar isku jira ama waxay noqon karaan rag iyo dumar ay la socdaan waxyaabo kale ama walxa oo keliya ay noqon karaan ashyaa oo kale waxaa aadaya kombiyuutaro badan aa loo isticmaala Are Bob and Mary married? Are Bob and Mary married? su-aashaa lagu weydiiyey marka Are Bob and Mary married? Bob iyo Mary ma isqabaan waxaa leedahay yes they are haa way isqabaan ama no they aren't may isma qabaan Are they in office? Are they in the office? ma xafiiska ayay ku jiraan marka waxaa leedahay yes they are haa xafiiska ku jiraan ama waxaa leedahay no they aren't may xafiiska ku jiraan waxaa lagu weydiin karaa are they a couple are they a couple ma lamaana miya are they a couple ma lamaana ba marka waxaa leedahay yes they are haa waa lamaane ama no they aren't maya lamaana maaha okay qodobka toddobaad marka point 7 qodobka toddobaad yes no question sida loo sameeyo su-aalaha haa iyo mayda with we anagoo isticmaalayna magacyaalka we waxaana waa soo barnay sidii su-aalaha loo sameeyay laakiin jawaabaha sida looga jawaabo ayaa hadda lagu baraya jawaabaha macnaha suurtagalka ah marka laba jawaab ay noqonaysa yes ama no marka win waxaa loo yaqaanaa naxwaha markii la joogo first person plural waa magacyaalka uu isticmaalo qof markaas afyeena oo waxa weeye qof hadlaya laakiin afyeena oo dad matalaya are we next halkan are we next ma anaga ku xigna marka saasaa lagu weydiiyey mood markaas ala yes we are haa anaga ku xigna ama no we aren't may anaga kuma xigno are we in trouble ma dhibaataan ku jirnaa yes we are haa dhibaataan ku jirnaa ama no we aren't may dhibaato kuma jirno are we a good team koox wanaagsan baan nahay are we a good team koox wanaagsan ayaan nahay
yes we are haa koox wanaagsan ayaan nahay ama no we aren't koox wanaagsan ma nihi soo soco point 8 qodobka sideedaad yes no question is sida loo sameeyo su-aalaha jawaabta ay noqonaysa haa ama maya with you maxaa waaye annagoo isticmaalayna magacyaalka you you-na waxaa loo yaqaana markaan second person plural waa magacyo loo isticmaalo dad badan oo markaasi ka hortaagan rag iyo dumar waxay doonaan noqdaan rag badan oo ka hortaagan ama gabdho badan oo ka hortaagan ama waxa uu isku jirkooda mathalan fiiri markaa leh are you guys hungry dad iyo baahantiin ereyga guys waxa weeye hadda waa dad yahow waay dad yahow baahantiin are you guys hungry dad yahow baahantiin ka dad badan oo ka hortaagan la hadlaysa are you all at home dhammaantiin guriga joogtaa wayda marka jawaabta noqonaysa yes we are haa waa baahannahay ama yes we are haa guriga ayaan joognaa ama no we aren't we are not maya ma gaajeysni maya guriga ma jiro are you two good friends labadiina saaxiib wanaagsan ayaad tihiin are you two good friends labadiina laba saaxiib wanaagsan miyaad tihiin yes we are haa waa nahay no we are not maya ma nihi marka cashirkani aad iyo aad buu u fudud yahay marka waxaa la rabaa keliya inaad barato sida marka qaabka loogu jawaabo markii la sameeyo su-aalaha iyo mayd ah sida loogu jawaabayo ayaa lagu baraya oo keliya ma garagta marka ogow maxaa qaldan waxaa loo yaqaanaa okay waaya haddaba waayahay marka u fiiriso meeshaan u fiiri mujeedaa markii la joogo naxwaha waxaa loo yaqaanaa first person singular ayaa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa first person singular first person singular yani waa magacyaal uu isticmaalo qof kasta oo markaa doonayo inuu naftiisa ka hadlo qof kasta oo naftiisa inuu ka hadlo doonayo ayaa isticmaala waa first person singular waa la marka okay wiina waxaa loo yaqaanaa we waa annaga mogta waxaa loo yaqaana isagana waa first person plural waa magacyaal markaasi uu isticmaalo qof afhayeen u ah dad fara badan dad buu afhayeen u yahay isaga aragtidiisa iyo doonitaankiisa iyo rabitaankiisa kama hadlayo laakiin
dad badan buu matalayaa oo rabitaankooda ka hadlaya, codkooda ku hadlaya. marka I waxa weye waa aniga, waxaa loo yaqaanaa first person singular, waa magacyaan u isticmaala hal qof kasta oo markaa iska hadlay, hal qof oo iska hadlaya macnaha I aniga hadlay. win waxa weye waa first person plural, yani waa magacyaal uu isticmaalo hal qof oo dad badan matalaya, waa fayaan ah. waay waxaa inoo soo haray he, fiirso he iyo she iyo it, saddexdan ma aragtay, saddexdan waxaa loo yaqaanaa iyaguna waxaa loo yaqaanaa thirdy, waxaa loo yaqaanaa waa thirdy person singular, waa magacyaalo loo adeegsado markaasi waxa weeye dad maqan. third person singular wey, waa magacyaalo loo adeegsado hal qof oo maqan, hal qof oo maqan de oo naga maqan, hal qof oo maqan. matalan he waa qof rag ah oo maqan, she waxaa loo isticmaalaa qof dumar oo maqan, it waxaa loo isticmaalaa shay ama xaywaan oo markaasi aynu ka hadlayno, wayda hal xaywaan ama hal shay aan ka hadlay. waxaa inoo soo haray day waa inoo soo haray soo ma. dayna waxa weeye waxaa loo yaqaanaa waa thirty person plural wey, waa magacyaal loo isticmaalo dad badan oo markaasi naga maqan, dad badan oo maqan oo laga hadlayo, rag badan oo maqan ama dumar badan oo maqan ama isku jirkooda ama xayawaan badan oo maqan ama ashyaa kale ayay noqon karaan. ma garate. waxaa inoo soo haray u baa inoo soo hartay, u fiir u mujida u marka mar waxaa la yiraahdaa waa marka af soomaali waa adiga, hal qof markay wataan u adiga, waxaa loo yaqaanaa waa second person singular, waa magacyaal loo isticmaalo hal qof oo ka hortaagan, waa magacyaal loo isticmaalo hal qof oo markaasi dee ku hortaagan, hal qof oo ku hortaagan, magacyaal loo hal qof ku hortaagan wey. isla u haddana mar kale jamc ahaan waa loo isticmaali karaa, marka waxay la macno tahay u idinka, u tan waxayd adiga, tan hore waxayd adiga, tan waxa waa idinka wey. marka waa second person plural wey, waa magacyaal loo isticmaalo dad badan oo laga hadlay. ma garad intaa cashar kugu muhiimsan, marka intaan isku day inaad waxa weye commentiga nala wadaagto adigoo si quruxan u qoraya. ma garad aniga hadlaya, u idinka ila hadlaya, ama adiga muuqaalkan daawanaya, waxaan ka hadlaynaa she gabar maqan, waxaan ka hadlaynaa ma garatay mujida hal wiil maqan, he ama it shay kale, ama dee iyagoo dhan baa ka wada hadlaynaa. marka waa sidaas weeyaan. marka insha allahu taala halkaas ayaan ku weynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala